السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دوادا إن شاء الله تعالى وحن تعالى استينا ندلو داقو برنامج كيني نحور كبواكتا بوك لو يقانو The Leadership of Muhammad أو قري جون إيريك أداير نيلي دهدو بوغن جون إيريك أداير وحكا غورميا qaab hogaamintii nabiga calayhi salaatu wasalaam intaana buugga u gelin iyo mawduuciisa John Eric Dyer waa aqoonyahan jaamacadaha ugu waaweyn Ingiriiska wax ka dhiga ahna kana gaaray aqoonta shahaadada ugu sareysa waxa uu qoray in ka badan 50 buug oo ka warramaya jaanibka leadership iyo hogaamiyaha u badan textbook iyo buugaag muqarrarada waxa uu John Eric Dyer tababaro u ahaa iminka inuu yahay mahuba laakiin waxa uu tababaro u ahaa madaxda adduunka soo martay sida United Nations oo kala madaxdooda ayuu tababaro u ahaa oo madaxda soo marta United Nations kuliyada loo yaqaan leadership United Nations ayuu tababaray macalinka ahaa oo wuxuu ahaa ninka tababara hogaamiyaasha ka soo baxaya United Nations u soo baxay United Nations waxaana igu maqaala ah oo aan maqlay inuu waxa uu ku tababari jiray yahay buugan The Leadership of Muhammad ku tababari jiray United Nations John Eric Dyer marka waa ninka noocaas ah elashiisu waa Ingiriis afka Ingiriista ayuu ku hadlaa waxa uga socdaa buugga uu qoray waxa ugu magac daray The Leadership of Muhammad hogaamintii nabi Muhammad calayhi salaatu wasalaam waa nin Ingiriis ah af Ingiriis ku hadla isku diin aan ahayn isku dhaqan aan ahayn isku meel aan joogin hadana waxa uu wax ka qoray uu leeyahay The Leadership of Muhammad modern The Leadership of waxaweyneedii waxa la Ingiriiska modern hogaamiyaashii United Nations ku tababaray laakiin wuxuu yiri The Leadership of Muhammad waxyaabo laga baranayaa jira waxa laga baranayaa mafhuumka ah inuu nabi calayhi salaatu wasalaam ahaa nabi loo soo diray ummadda dhan ay ka faa'iideysteen aha min Mareykan oo galbeed ah ilaa iyo bari waxaana cadaymo fara badan baa jiray laakiin buuggan wuxuu ka mid yahay iyo buugaagta kale laga qoray ay ka qoreen reer galbeed wuxuu ka mid yihiin cadaymaha tusaya inay nabi calayhi salaatu wasalaam caalami nabi calayhi salaatu wasalaam hore u sheegay wuxuu yiri وبعثت إلى الناس عامة وحول النبي عليه الصلاة والسلام وحليسيه شان أو وأنا سي نبي يجهري وحكم إذا مركع النبي والبوح الله صادري قوم كيسي وبعثت إلى الناس عامة يعني ذات كان أنا كانوا حلي صادري ذات قولا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وحيوان كان لقى فربضني وحكم إذا إنه إيمان كوسيادو إيمان كوسيادا كبضني سا وحيوان كلاد كيف يسنس وحكم إذا inaad ogaatid inay inagu xilkeeni gabnay ninka wax ka qoray waa nin noocaas waa nin isku afma isku dhaqma isku diin maaha isku xadaarad ma isku soo meel noolayn isku marka waxa dareemaysaa inay inagu xilkeeni gabnay inaynu cadayno diinteena nabigeena iyo weynidiisa inaan cadayno inaan xilkeeni gabnaa dareemaysaa haddaan imaado marka buuggan wuxuu ka warramayaa The Leadership of Muhammad nabi Muhammad calayhi salaatu wasalaam qaabkiisa hogaamineed oo taariikhyada ay ku tilmaamaan hogaamiyaha ugu wanaagsan ee soo maray taariikhda adduunka ama shakhsigii ugu weynaa ee soo maray taariikhda adduunka doctor maqaal hore aan ka qorayna insha Allah wuu jiraayo wad ku noqon kartaa oo nabiga calayhi salaatu wasalaam yaa mudan in lagu daydo oo 3 maqaal aan ka qoray marka waa dareemi karaysaa taariikhyada badan baa marka halbeegyo kala duwan isticmaalay oo ay ku soo saarayaan qofka ugu weynaa taariikhda adduunka soo maray ama cidii ugu mudan ee in lagu daydo role model noqoto John Eric Dyer wuxuu leeyahay buuggan wuxuu kaga warramayaa
wuxuu ka kooban yahay ilaa 8 cutub buu ka kooban yahay buugu 8 cutub wuxuu kaga waramayaa hordhac maaha inta kale wuxuu kaga waramayaa taariikhdii nabiga calayhi salaatu wasalaam 6 cutub wuxuu kaga waramayaa qayb kamid ah biography nabiga calayhi salaatu wasalaam oo uu leeyahay uu ka soo qaadanay nuqdaad iyo casharo ku saabsan qaab hogaamintiisii hordhac wuxuu ku bilaabayaa halbeeg yar oo dhiganayo waa sidii Alfonso de Lamartine iyo Michael Hart ninkan qoray buugga The 100 iyo Ram Krishna iyo ninka loo yaqaan Hindiga ay halbeegyada u dhigteen ay ku soo saarayaan qofkii ugu weynaa taariikhda adduunka soo mara isna wuxuu dhiganayaa halbeeg uu ku soo saarayo hogaamiyaha uu baahan yahay hogaamiyaha uu leeyahay hogaamiyahaasa hogaamiyihii ugu saameynta ugu raadinta badnaa ahaa ama hogaamiyaha effective leader uu ku soo saaranayo wuxuu leeyahay halbeega wuxuu qaybinaya wuxuu leeyahay hogaamiyaha waxa uu taala 3 tiir ayuu ku taagan yahay buu saddexdaas tiir sida uu isugu keeno ayuu buu qofkaas ku noqon karayaa effective leader wuxuu leeyahay hogaamiyaha waxa uu taala waxa uu taala buu leeyahay task shaqa uu taala buu leeyahay vision iyo mission buu leeyahay meel buu ku socdaa shaqa uu taala wax uu doonayo inuu qabto labo hogaamiyaha ma jiro hogaamiye keligii iyo horlaynaya hogaamiye walbana wuxuu u baahan yahay team work buu leeyahay saadareedeed waxa uu taala group baa u yaala groupkaas inta uu isku hayay shaqadooda iyo team workooda uu ku dadaalay uu adkeeyo tiirarkooda ayuu ku noqon karaa effective leadership tiirka saddexaad uu ku taagan waxa weeyaan ama halbeega saddexaad waxa weeyaan group walba wuxuu ka kooban yahay individual iyo shakhsiyaad leh dareen gooniya damac gooniya baahiyo gooniya needs gooniya leh wuxuu leeyahay marka groupkaas kii leexday damaciisa gooniya u leexda inta uu soo celiyay uu isku wada isku hayo dadkaas ayaa uu qofkaas ku noqon karayaa effective leadership marka saddexda tiir wuxuu leeyahay ma jira buu leeyahay hogaamiye adduunka soo maro laga helo ilaa nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam halbeega markuu ka baxo wuxuu ka waramayaa wuxuu gudbayaa buugga cutubiyadiisii wuxuu ugu horeysiinayaa wuxuu ugu magac daray teendhadii reer banu Sacad wuxuu ka waramayaa deedna nabiga calayhi salaatu wasalaam in yaraantiisii markuu dhashay uu agoon ahaa kadib hooyadii dayr kadib ay dhimatay intaan hooyadii dhimanay ay miyiga u dirtay oo caadada carabtu ay markaa ahayd in ilmaha yar miyi loo diro sabab badan awgeed oo ah inuu afkiisa iyo afka carabiga ee fusxada asalka ah inuu si wanaagsan u soo barto iyo labada inuu ku soo adkaado oo murqidiisa iyo jirkiisa ay ku soo adkaadaan wuxuu leeyahay Xaliimatu bintu Sacdiya qaadatay oo markaa reer Hawaazin ahayd wuxuu ka waramayaa markaa muddo badan ka bacdi markuu nabiga noqday Maka furtay intuu Madiina u haajirtay Maka furtay ee Hawaazin ku duulay Taif wuxuu leeyahay dagaalkaas wuxuu ka waramayaa waxyaabo far badan oo dagaalka ka dhacay oo qaab hogaamintii nabiga calayhi salaatu wasalaam laga baranayo buu leeyahay wuxuu ka waramayaa dagaalka ma doonay inaan ku dheeraado waa iska macruuf dagaalku reer Hawaazin buu la dagaalamay Taif ay degnaayeen waa iska macruuf siirada lagu yaqaan laakiin waxaan rabaa waxyaabaha uu leeyahay isagu aan ka bartay inaan si guud la wadaago waxyaabahan ka bartay waxa kamid ah buu leeyahay waxa kamid ah geesinimadii nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay dagaalkaas markii hore way isdhigteen oo waxay yiraahdeen maanta yaraan nalaga guuleysan maayo marka waa Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka warramay yawma Hunayn ida ajabatkum katratukum maalintii Hunayn ay cajab gelisay buu leeyahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala badnidiinu yaa haddana waxba idii tarin wuxuu ka warrayaa markaa nabiga calayhi salaatu wasalaam markii ay muslimiintu jabeen inuu nabiga calayhi salaatu wasalaam baqashiisii fuulay uu leeyahay anu maxamed baanahay rasuul baanahay leeyba beeniyo ana ibn abdullah uu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay bal suuraysa buu leeyahay hogaamiye ummadan hogaaminaya oo cadawgiisa intuu dhex maray isu sheegayo leh soo cadeeyo qofka uu yahay sifooyinkiisa iyo wixii lagu yaqaanay sheegaya magaciisa sheegaya wuxuu leeyahay waqaayatu buu leeyahay geesinimo halkii ugu dambeysay buu leeyahay waxa kale oo ka waramayaa qaabkii dadka u qanciyay dagaalka Hawaazin markii muslimiintu markii dambe way guuleysteen oo qaniimadii bay qaateen
qanimadii markay qaateen waxa uu imanaysa markaa walaashii oo xagga radaacada ay ka walaalooween darmu u fidinaya halkaas sheeko aad iyo aad u qurux badan baa ku dhex mari doonta buugaad insha Allah tacaala ugu noqon doontaa iyo waxyaaba laga faa'iideysanayo waxyaaba laga faa'iideysan waxa kamid ah qaabka uu nabiga kaleey salaatu salaam darmada ugu fidiyay oo dhulka wala fadhiistay tawaaduc iyo islu dhig ay ka muuqatay cutub gooni u yeelay qaabka uu qaabka uu nabiga kaleey salaatu salaam wala fadhiistay wuxuu leeyahay ma jira buu leeyahay hogaamiye aad ugu tagsayso kursi ku fadhiyo oo kursigii mid kula mid ah ku soo dhigay ama kursigii kaaga kacayo adeeg ku fadhiisinaya buu leeyahay raciyadiisa iyo dadkii uu hogaaminayay uu soo adoonsaday ama dadkii uu soo qabsaday sidaa ku sameeyay xulay nabiga kaleey salaatu salaam kursigu dhulku la fadhiistay oo la simay isagoo wax takaburiyo wax iska weynina aan ku jirin xulay waa sifooyin kamid sifooyinka lagu yaqaan hogaamiyaasha saameynta leh inuu noqdo hogaamiye isku dhigaya aan kibraani haysan ka taagayn wuxuu leeyahay waxyaabo kale laga baran karo waxa kamid ah buu leeyahay marka nabiga kaleey salaatu salaam waxay ka codsadeen marka reer Hawaasin baa u yimid waxa ku leedeen waxa taaya inaan kan abtiga ahayn inaan way adigu way yar amaaneen nabiga kaleey salaatu salaam ku yiri waa soo islaamay markay dhaadeen laba kala door buu yiri inaan qaniimadii iyo xoolihiidii celiyo iyo inaan maatadii celiyo caruurtii dumarkii celiyo caruurta iyo maatadii loo celiyo kadib waa asxaabtiisa ku noqonaya wuxuu sheegayaa inuu sidaa go'aansaday asxaabta intii badneed way yeelayaan laakiin afar qabiil meelahaas diidaya afartiibuu sidii u qanciyay buu la yaaban yahay marka John Eric Adair wuxuu leeyahay hogaamiyihii waxa uu taala team work buu leeyahay oo group isku haya halbeegiisu ka indilaaqay maragta wuxuu leeyahay individualiska intii ka caroota ee damac gooniya galo qaabka aad u soo celinayso waxay kamid tahay qaabka aad u qancinayso waxay kamid tahay skillska looga baahan yahay hogaamiyuhu inuu lahaado hogaamiyaha saameynta leh waxa kale oo ka waramaya John Eric Adair cutub kale ugu magac daray Shipyard oo uu ka wado ari jir xuleey ma jira nabiga kaleey salaatu salaam baa xuleey hadal buu ma jira nabi ilaa iyo wuxuu raacay ari wuxuu leeyahay marka ariga waxa ku jirta buu leeyahay xikmad aad u xeel dheer buu leeyahay siiba wuxuu leeyahay idaha waxa ku jirta xikmad aad iyo aad u xeel dheer wuxuu leeyahay wuxuu tilmaamayaa waxay ku kala duwan yihiin qofku inuu geel jiro noqdo iyo qofku inuu ari jiro noqdo wuxuu ka waramayaa qofku inuu ari jiro noqdo wax badan bay u baahan tahay buu wuxuu leeyahay nafsu kriteeriyadii aan doortay halbeega hogaaminimada task iyo group iyo individualis saddexdaas hogaamiyuhu isku hayo ayaa ku jirta buu leeyahay arjinimada wuxuu leeyahay qofka arjinka waxa uu taala saddex shaqo isna wuxuu leeyahay waxa uu taala shaqo ah inuu xoolahaas iyo ariga wado inuu daaq geeyo caws fiican geeyo naq fiican u soo daydayo oo ku hago labo inuu waxay ka kooban yihiin ariga wada tiradooda inuu isku hayo saddex tiradaas waxay ka kooban yihiin riyo iyo maqal uu wadaba intaba wuxuu leeyahay intaasba waxay u baahan yihiin buu leeyahay waxay leeyihiin mid walba wuxuu leeyahay neef walba wuxuu leeyahay damac gooniya wuxuu leeyahay waxay leeyihiin dabeecado gooniya buu leeyahay waana runtii inaga looga waramayo dhaqankeena iska xoolo dhaqato ah oo aad garan kartaan ariga iyo dabeecadahooda iyo qaabka qofka ari jirka ay dabeecadaha uu leeyahay iyo geel jiraha iyo ari jirku waxay ku kala duwan yihiin si fiican baan u dareemi karaynaa saadiraadeen wuxuu leeyahay qofka ari jirka waxa looga baahan yahay saddexda shaqo in isku hayo oo waxa dhici karta inagu weyn aragnaybe waxa jirta marka qofka iduhu walba siiba iduhu aad u madax adag waxa jirta lax si gooniya dabeecad gooniya leh ama luka dhitaysa wax adu dabeecad gooniya leh wuxuu leeyahay qofka la socda marka xoolahaas wuxuu sameeyaa si gaar ah u xanaaneeyo oo ilaaliya haddii tahay inuu geedka sarmaanta iyo cawska iyo inuu soo fujiyo u keeno halkeeda ugu keeno wuxuu leeyahay qofka hogaamiye waxa looga baahan yahay nafsu shay haddii dadka hogaaminaysa ay qaar damac gooniya yeeshaan dareen gooniya ay yeeshaan baahiyo gooniya ay yeeshaan qaabkii aad u qancinayd ula tacaamuli lahayd baa loo baahan yahay buu leeyahay waxyaabaha ku jira buuga
ay tahay in manduurka noocaas iyo halbeega noocaas in hogaamiyaasheena aynu baahanahay isku eegaan wuxuu leeyahay markaa nabiga kaleey salaatu wasalaam halka uu nabiga ka soo galiyay wuxuu nabiga kaleey salaatu wuxuu raacay ari qaabka uu Hawaazim u dhaqmayna waxa ku saaciday buu leeyahay inuu khibrad u lahaa buu leeyahay qaabka loola dhaqmo dadka iyo dagaalo farbadan ka sheekeeyay nabiga kaleey salaatu wasalaam qaacidooyinkan uu isticmaalay wuxuu ka warramay nabiga kaleey salaatu wasalaam daacidnimadiisa in la oran jiray inta nabi noqonaya intii ka dambeysay Maxamed al-Amiin in la oran jiray daacidnimadiisa uu ka warramaya oo leeyahay waxa isku xidhan buu leeyahay inta dadku kugu kalsoon yihiin inta daacad tahay wadaaragti wuxuu leeyahay waa isku xidhan buu leeyahay wuxuu leeyahay hadii meesha daacadnimadu ka baxdo kalsoonida waa baxaysa hogaamiye aan hadalkiisa lagu runka sheegay qowl ficilkiisa aan runka sheegay waxa uu ballan qaaday aan runka sheegay kalsoonida lagu qabi karaya waa mid noocma marka waxa meesha ka baxaysa groupkii hogaaminayay inay ku kalsoonaanin dadkii uu hogaaminayay inay ku kalsoonaanin saadiradeed saddexdii halbeeg mid baa baxaya weligaaba hogaamiyu shaqadiisu ha muuqato laakiin hadaan hogaamiyo noqdo hogaamiye daacada waxa uu sheegay ka run sheegaya waxa baxaya kalsoonida meesha ka baxaysa waxa uu ka warramaya nabi kaleey salaatu wasalaam inuu ha hogaamiye birlab ah wuxuu ka wadaa birlab wuxuu ka wadaa inuu nabi kaleey salaatu wasalaam marxaladii ugu adkaa uu dadka uu hogaaminay la soo qayb qaatay hatta uu ka gaaray buu leeyahay inuu gaajo awgii nabi kaleey salaatu wasalaam adduunyo maxay taraysaa uu laba dhagax caloosha iskaga xidhay adduunyo waa taas adduunyo waa taas marka wuxuu ka warramayaa inuu ha hogaamiye birlaba sida uu dagaalka u dhax qaadayay haday tahay xagga geesimaysa haday tahay xagga adayg iyo quwadiisa haday tahay xagga aragtidiisa iyo go'aanadiisa inuu ha hogaamiye birlab ah ayuu ka warramaya runtii intaasan jecel hortay inaan kusoo gabagabeeyo buugga waa buug iska kooban oo 100 page meelahaas ah nusqooyinkaas kala duwan laakiin waa buug aad u kooban laakiin waxa ku jira waxyaabo aad iyo aad u inoo anfacaya ka muslim ahaan waxaan isku leeyahay in aad akhrisataan intaasan kusoo gabagabeynaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh subxaanaka allahumma bihamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk